wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayaa bilowday howlgal ballaaran oo biyaha lagu gaarsiinayo xaafado ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. wakaalada biyaha ee magaalada Burco muddooyinkii ugu dambeeyay maalinba tallaabo dhinaca horumarka qaadaysay ayaa waxa ay xilligan bilowday inay rigbiyood cusub oo aan hore ugu xidhnaan jirin habka ay biyaha wakaaladu u shaqayso ay ku gaarsiiso gudaha magaalada. boqolaal shaqaale ah oo kala duwan ayay gelisay wakaalada biyuhu si ay sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay ceelkaasi ugu soo xidhaan nidaamka ceelasha kale ay u shaqeeyaan. munaasabad ballaaran oo beebabkaasi lagu soo abuurayay ayuu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayar isaga oo beebkii ugu horeeyayna halkaasi dhigay. munaasabadan ayaa waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha wakaaladaha biyaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Jawhar iyo waliba saraakiil kale oo iyaguna ka socday wasaaradda macdanta biyaha Soomaaliland. gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayar ayaa uu hambalyo u diray mas'uuliyiinta wakaalada biyaha ee magaalada Burco sida hagar la'aanta leh ay maalinba maalinta ka dambaysa ay u qaadayaan tallaabo ay ku sii hagaajinayaan adeegga dhinaca biyaha ee u hayaan dadweynaha. mudane Aayar waxa uu tilmaamay in xilligan ay marayso wakaalada biyuhu meel aanay weligeed gaadhin, isla markaana waxa uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane Aayar in maamulka iyo hanaanka fiican uu tusaale u yahay wakaalada biyaha ee magaalada Burco. maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Burco Ibraahim Jirde ayaa isaguna waxa uu xusay ceelkan oo loo yaqaan buri ceel sagaalaad ay maanta si rasmi ah u bilaabayaan sidii ay ugu xidhi lahaayeen habka iyo nidaamka biyaha ay ku gaadho magaalada. waxaana uu xuseen ceelkan ilaa 7 kiiloomitir uu dhinaca galbeed ka xigo magaalada Burco isla markaana uu si habsamiya u geyn doono biyaha soo ahbuuri biyo macaan. agaasimaha wakaaladaha biyaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Jawhar oo isagu magaalada Burco toddobaadkii ugu dambeeyay ku sugnaa isaga iyo saraakiil wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa ka markhaati kacay howlqabadka ee wakaalada biyuhu ay qabatay. maamulka wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayaa waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku tallaabsadeen horumar wax ku ool ah oo ay ka markhaati kacayaan dadweynaha magaalada Burco. waxaana ay noqonayaan maamulka xilligan gacanta ku haya wakaalada biyaha ee magaalada Burco kuwii ugu horeeyay ee galbeedka magaalada Burco biyo macaan kaga keena. Cabdisattaar Sabri, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Burco.